ila sawir saaxiib haddii aad tahay nin qoraa ama qisooyinka qora ama sheekooyinka qora maalmaha kamid ah sheekada qoraysa sheekadaas fogtina waxay ku bedelaysaa isla caalamkii aad joogtay yacni sheekadaas caalamkeeda ama waxaad kaga hadlaysay ayaa wax tagaysaa caalamkeedii laftarka ahaa kadibna xagaas waxa la soo tacaamulaysaa wixii aad qorqorayso ama wixii sheekada ka sheekeynaysay sheekadan waxay ku dhacday wiilkan anime qisadeena ay ku saabsan tahay maanta animegan wuxuu soo baxay 2026 waana anime aad u macaan wuxuuna ka macaan yahay marka loo eego qiimeynta animeega hore aan soo dhigay kaasoo lagu magacaabo Dead Account animegan waa anime aad xamaasadiisa wata wuxuuna ka sheekeynayaa qofkii awooda inuu sheeko qoro hadduu sheekadu qoro caalamkiisa ayuu tagayaa isaga ayaana noqonaya qofka ugu awoodda badan leh lagana dambeeyo haddaba maanta saxaab anime xamaasada badan baa noo wada ee fadlan muuqaalka like saara kala ku soo biro subscribe saara nagu tuura 9k وتعالوا بنا نبدأ في هذه قصة الأنمي anime wuxuu ku bilaabay laba qof oo sleynaya markaas mid kamid ah waxa dhacday in lagu jiyo dhulka kiina wuxuu bilaabay inuu yiraahdo maaniyad ku jidaysa kadib wuxuu soo saartay awoodiisi kadib wuxuu bilaabay ku soo tuurakay laakiin kiina waxa dhacay inuu go'aabsado oo yani yiraahdo awoodiya ka qabtay laakiin wuxuu arkay in awoodi ninka isku yani la dagaalamayay aw baabaaday markaas ninkii soo u yaaban ayaa wuxuu arkaa ninkii oo xagga dabka ka soo weeraray laakiin waxa dhacay inuu awoodi bahalka uu haystay ninku uu ka difaaca ninka kale kadib ninkii way dhaadmay khiyaamaysa ninkii wuxuu yiraahdaa adiga isku tiiris ada xamaasada u kiciyay saaxiib maantana waa dhimanaysaa xagan adigoo nool kama tagaysid markaas wiilku waxa ku yiraahdaa sheekadeen waxay ahayd kaliya tadriib ama tababar laakiin xagaas aad gaarsiinaysaa maxaa ka khaldan saaxiib ma ku yiraahdaa saaxiibana uma nihiin laakiin adaa u maleynayna saaxiibka ahay ee xaqiiqada ku sheegan saaxiibka meehi ee waxaan ku leeyahay maanta xagan baad ku dhimanaysaa kumana laabanaysaa oo caafimaad qaba kadib wuxuu isticmaalay awoodiisii wiilkana miskiinkiina wuxuu bilaabay iska daawado isoo daawana waxa dhacay ninkii uu yiraahdo maxaa iga khaldan markaas wuxuu bilaabay awoodiisa xakamin kar waayo awoodiina ay ka dhamaata kadib markuu ninka dhulka ku dhaco ayuu wuxuu ku yiraahdaa wiilkii la hadlaa wuxuu ku yiraahdaa saaxiib waxaan ka baraya waxaan ka codsanaya in iska tiyafisid waayo waxaan ahaa qof xun intii hore shariirkaan ahaa ama qof dhibka badan ahaa ma ahayn qof wax xasuusta ee waxaan ka codsanaya saaxiib iska tiyafisid waxaan la rabaa inaan sir ku sheego intuu sirtu sheego waxa dhulka ku dhaco nafta ka baxdo maase wiilku qiyax ku yiraahdaa ii sheeg inta nafta ka bixin sirtaas wiilkiina wuxuu ku celceliyaa laakiin saaxiibeyga tagiis waaxay kaliya anigu tadriib ayaan sameeynaa ee nolosha igu faarujiyo ku barayay laakiin ninkii waxa dhacay in naftay ka baxdo saaxiibkiina markuu arkay in naftay ka baxday waxa dhacay inuu ooyo qayliyo haddaba saaxiib waxaan hubaa inaan fahmay anime-gu soo socdo iyo dagaalka lagu bilaabay haddaba haddana ugu yiraahdo ka war waxaan oo dhan dagaalkana waxaan dhacay nin ay qoray ninkaasna waxa loo yaqaan Wang Lee ninkana waa nin qoraa ah sheekooyinkii mangada iyo manhawdi waxa soo qoraa markaas wuxuu yiraahdaa waxaan jeclaan lahaa inaan caalamka tago sheekada aad u xamaasad badan marka dadweynaha noo soo bandhigo aad ay uga heli doonaan asxaabtiisa la xiriira wuxuuna ku yiraahdaa ka wana sheekada sameeyay markaas asxaabtu waxay ku yiraahdaan waa sheeko soconaysa anime ay xitaa laga sameyn kara maase wiilku wuxuu yiraahdaa ka war aniga waxay meelinaysaa qof miskiina waxaan ahay qof dagaalyahana oo ku dagaalyahana dhakan loo saman hawada loo qoro maase ku yiraahdaa waa saxan tahay kini waxa dhayn ninkii iska aamuso isoo aamusan la yaaban oo yaani sheekada uu qor la yaaban uma hal mar waxa dhayn la soo waco markuu la soo waco moolkii qabto ayuu ku la hadlo waxaan ku yiraahdaa fursadaan ku hayna ku tagaysa caalamkaas maase ku yiraahdaa adigu laakiin qofkii la uma jawaabo una aamusa laakiin soo moolkii loogu dhigay markii moolka loogu jaro yaani cidba ila hadliyso ayuu wuxuu wiilku yiraahdaa maxaa yahay qofkii la soo hadlayay yuu yahayna laakiin faj'atan ikhtafa makaanahu meeshiisii uu ka baabay wuxuuna aadaa caalamkii uu ku qorqorayay ama yaani caalamkii sheekadiisa uu qoray ninkii wuxuu noqday nin moola ama dukuran oo yaani simaa lahayn wuxuuna bilaabay inuu yiraahdo caalamkii aan niyada ku hayay ee ku soo laabtay hadda waana ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan arko ashqaastii aan sawiray waxoogii yaani sheekadii aan rabay inaan qorqoro ninkan magaciisa waa laga bedel waxaana loo yaqaan Wang Sayatosa ama yaani waqtigan uu joogo hadda ama yaani caalamkan uu joogo waxa loogu yeeray Wang Sayatosa oo ruuxiisi ama yaani naftiisa waxay gashay nin loo yaqaan Wang Sayatosa kaasoo ah markii hore nin dukuran dadkuna waxay bilaabeen soo dhaweeyaan way qaana yaani ku bilaabeen si xun u dhaqmaan maase wuxuu bilaabeen su'aalo ma leeyahay weydiiyo kadib gabadh way matay gabadhaasna ma waa ninkii markii la dagaalamay yaani labada qof ee dagaalamay uu soo bilaabay gabadha bay ahayd wixii la dagaalamay laakiin ma ahayn gabadha waxay bilaabeen ninkii soo gacanta soo qabto waxay ku tiraahdaa maanta waxa la sameeyay tadriibkaasna waxa ka qayb galaya arday fara badan ardaydaas ku guuleystana wuxuu helay awood u gaar ah tadriibkaasna waa naalooyin naaladaas la soo keenaya naaladaas awood loo isticmaalaya kadibna naaladaas la jibinaya qofkii awooddeena si wanaagiisa u helay yaani naaladaas wixii ku jira xayawaan yarba ku jira xayawaankaas uu helay nasiib wanaagiisa ayaa wuxuu noqon doonaa difaac ama saaxir weyn
markaasa macalinku wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo ku yidhahdo yaa horta tijaabinaya markaasa wiilkii wangling baa wuxuu idhaahdaa anigaa isku daya tijaabinaya kadibna waxay ku yidhahdaan sheekadu maa si uma fududo kadibna gabadha waxay bilaabaan habsigiisa waxay ku tiraahdaa saaxiib ku tiraahdaa sheekadu maa sheeko fudud waxaan ula baahan yahay ikhtiyaar nasiib aad u weyn hadduu nasiibkaaga aad ku kalsoon tahay oo tijaabin karta anigu kuma diidayo laakiin waxaa kuu hubaa inaanan heli karin baydadaas ama beedkaasi ku jirta xayawaanku laakiin waxay tiraahdaa anigaa soo tijaabin marka koobaad ee suusug waxay isticmaalaa awoodeedii kadibna dadku waxay bilaabeen ay isticmaalaan awoodahoogii oo koba mid baad uu tijaabiyo kadibna dadkii kale waxay bilaabeen daawadaan ninkii gabadh yar waxay bilowdaa inay iyana isticmaasho awoodeedii oo ay naalada awoodooda ku shido waxayna rabtay inay kasoo saarta xayawaanka loogu balan qaaday lagu yidhi xayawaankaas ayaa ku jira waxayna ku mashquulshaa naaladaas oo yani iska dhalaalistaa kadibna wiilkiiba meeshii uu soo dhaqaaqa wuxuuna bilaaban dadka uu feerfeeriyo wuxuuna arkaa dad fara badan oo ku mashquulsan in ay naaladaas qarxiyaan oo mid walba nasiibkiisa wuxuu rajaynayaa inuu naaladaas uga soo dhex baxo xayawaankaasoo mustaqbalka u noqon doona mid difaaca isaga markaasa wiilku wuxuu idhaahdaa hadda anigaa istijaabinaya wuxuuna soo dul istaagaa mid wuxuuna bilaabin awooddiisa isticmaalo kadib inuu naaladu qarxiyo waxaana uga soo baxa xayawaan yar xayawaankaasna gacantiisa ay golaa dadkiina ku farxaan waxay idhaahdaan hadda waxaa noqotay nin awood badan waxaana kuu soo baxay nin miir ama shabeel yar shabeelkaas oo shabeel yar saaxiiro baara leh waana shabeel aad u awood badan waana kaan raaraadinaynay dadkiina waxay bilaabeen inuu sacabeeyaan waxayna ku idhaahdaan run ahaantii nasiibkaaga waa nin mid aad u sareeya waana nin waxaa tahay nin aad u nasiib badan kadibna shabeelka yar ninkiiba isku soo raaca waxayna bilaabeen inay gabadhi fiirsadaan ay isticmaalaan يعني ay daawadaan kadibna gabadhu waxay bilaabeen awoodeeda ay weyn isticmaasho laakiin waxba macna uma soo baxaan ama beedkaas waxooga ugama soo baxaan kadib ninkii qaayidka ahaa ayaa wuxuu ku yiraahdaa haddii waqtigu kaa gaaray gabadhina waxay bilaabeen isweydiiso sababta iyada awooddu ugu soo bixi laadahay ee uu ninkan ugu soo baxay isla markiiba kadib iyaga saas ka aamusan wada yaabno waxay gabadha ay samaysan karaan ayaa waxay bilaabeen haddii mar ay ku celis tiraahdo beedkii laakiin beedka hal mar waxa dhayno qarxo saa markuu qarxo waxa uga soo baxaa xayawaankaas oo ah xayawaan yar oo naqan oo aan awood lahayn xayawaankana markay aragto waxay bilaabeen inay ku dhagto haddaba xayawaanka ma garanaysiin waa xayawaanka weynaa markii hore ka difaacay ninka kale isleynayeen ninkan wuxuu ku yiraahdo wuxuu bilaabay inuu mahad celiyo waangelin ku yiraahdo haddii run ahaantii nasiib badan tahay mustaqbalkan waxaan hubaa inuu xayawaanka ka awood badnaan doono shabeelkan yar kadib gabadhu waxay ku tiraahdo waxba niyadda haydisin adiga ah heelay ninka ugu awood badnaa kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu jabiyo naaladaasna waxa ka soo dhax baa yani waxyaabaha naalada ku dhex jira dareeraha ah kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu meesha qalaasa ka sameeyo oo kolba naalo jabiyo kadib naaladii markuu jabiyo ayaa wax dadku waxay bilaabeen la yaabaan gabadhu waxay ku tiraahdaa waxaan jooji sameeyay waaxay kadib meesha waxay maadeen ninkii qaayidka ugu sareeyay ninkii yani kooxda akaademiyada maamulay wuxuu bilaabay inuu yeero wiilkii wuxuu la hadlaa wuxuu ku yiraahdaa adigu waxaa noqotay ninka ugu nasiibka badan leh maadaama hesha xayawaankii waana ku tahniyeynayna kuna hambalyeynayna dadkina waxay bilaabeen qaar inay ku soo jeestaan ka xumaadaan qaarna yani waxay bilaabeen ay ku farxaan qaarkii ka soo jeestay waxay bilaabeen soo weeraan laakiin xayawaanka waxay bilaabeen meesha ka kiciya boardkaasna wuxuu sababay inay cid arkay cidka kale kadib wiilku wuxuu bilaabeen gabadha xagga soo istaago wuxuu bilaabeen hadal yar sir oo sheego kadib dadkii meesha ku isaga soo weeraray dhan ayuu wuxuu bilaabeen inuu laayo kadib wuxuu ku yiraahdaa ninkii qaayidkii ka waran saan u galay toqobaani rabeynayaan in naftayga qaadaan ninkii qaayidkan wuxuu bilaabay inuu mahad celi ku yiraahdo run ahaantii waxaad tahay nin awood badan nasiibkaaga ayaa cadeynaya inaad tahay nin aad u awood badan wiilkiina waxaa dhacay inuu noqdo ninka ugu awoodda badan ee caalamkaas gabadhu way yaabantu waxay isleedahay kan hawo keenday ma aha waanglinkii kii hore aan garanayay laakiin kan caalamka leeyahay keenday maadaama ruux kale ku jiro haddaba mid ogaa ninkii qisooyinka qorayay ayaa ku jira ninkan yani dhukurin ama moolada ah ayuu ku jiraa jirkiisu ama ruuxdiisu ku jirtaa oo jir ahaan uu isticmaalaya laakiin kii moolada ahaa asalka oo ahaa ruuxiisu waxay gashay ninkii kale yani caalamka jooga yani waa isweydaareen marka ninka kale moolada dhukurada wuxuu ahaa nin daciif oo yani aan awood lahayn waxoogaa iska yar maraan daas waayba gabadha ula yaaban tahay oo isleedahay muxuusan u sameeyey kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu soo dhex galo cisaabo dhan oo yani maafiya waxayna ku bilaabeen ku sheekaystaan yiraahdaan ninka nin awood badan weeyaan nin wuxuuna helay shabeelkii la wada raadinayay haddana wuxuu noqonayaa nin aad awood badan ninkan u eegsaaytaamana wuxuu isticmaalaya awooday qudradaad aan la garanayn waxaan uga shakisanay ninkan uu caalamka la keenday dadkii oo dhan waxay bilaabeen ka shakiyaan maadaama ninkan dhukuran asalka jidka asalka lahaa ay ku ogaayeen inuu yahay nin doqon oo awood leh xalqada hore waxay noogu joogtay wiilkii ragay faananay leeyihiin ninka ugu nasiibka badan ee magaaladeena wuxuuna helay tiger ama shabeelkii la raadinayay markaas mid kamid ah wuxuu ku yiraahdaa waan ka qaadan doonaa tiger ama shabeelkii markaas wiilkii wuxuu ku yiraahdaa
khiyaano yacni inaad gaadin ma ahane igama qaadan kartiin anigoo soo jeeda markaas waxay ku yidhaahdaan waayahay adaa arki doona kadib wiilku wuxuu iska soo aadaa meel maqaaxiya wuxuu bilaabay ka fikiro si ragga ku qaadan lahaayeen taageerka ama shabeelka ama macquul ku noqon karto markaas shabeelkiisa ila Allah wuxuu ku yiraahdaa waxa isticmaashaa sixirkaaga wax kamid ah timahaagana waxaad u bedeshaa violet ama yacni benefsachi kadib wuxuu bilaabay inuu timiis loo bedelo benefsachiga ama violet marka loo bedelo wuxuu yiraahdaa hadda waxa rabaa in la soo dagaalamo koox xisaabade aniga iigu lahayd waxaan qaadan doonaa baalkaaga yara shabeelka kadib wuxuu yiraahdaa baalkii baa la wuxuu ku dhahay stichi laakiin inta la dagaalamideed waxa dhaantay adiga horta hotelka iska aada iskana soo baashaala kadib aad la dagaali doontaa wiilkuna wuxuu bilaabay in hotelka iska yimaado oo yani iska nasto wuxuu bilaabay inuu qorsheeyo si ay wax u socdaan iyo wuxuu dhici doona kadib soo sheekaysan wiilkii oo yaaban ayaa waxa uu sameeyay garan la ayaa shabeelkiisa wax bilaabay inuu timiisi yani u shaleeyo kadib wiilkiisa oo saa u taagan meeshii ayaa wuxuu ku fikiraa inuu helo xabbe yani ama yani digir miye mooyaan adoo wax yar oo saa laakiin cuntada u eego ama garow oo kale ma u eeg weeyaan laakiin xabad ah laakiin xabadaas oo ah yani xabad sixir ka samaysan marka wiilku wuxuu waxa raadinaya inaan helo baasha sixirka ka samaysan waxaan igu waajibay inaan helo si aan u sii kordhiyo awoodeeda ana u sii maamulo caalamkan hadda magaalooyin baa maamula magaalooyin badan baa rabaa inaan sii maamulay kadib wiilku wuxuu ku soo laabtay kooxdii xagii joogeen markaas wuxuu arkay gabadh yar oo aad u baqayso lugeeda jaraynayaan waxayna ku leedahay ninkii waxayna baraysaa waxayna ku leedahay fadlan iska tiida nafteeda ay dhaafuun maase ninkii wuxuu bilaabay inuu ku bootay gabadh yar oo gumayso laakiin wiilkii waa la hadlay wuxuu ku yiraahdaa maxaa sameynaysaa waxaas waa dulmiye markaas wuxuu ku yiraahdaa adiga maxaa kaa galay kadib wiilkii isagoo aamusan yaaban meesha taagan ayaa wuxuu ku yiraahdaa haddaba gabadhan haddaad faraha ka qaadi weysid adiga ay ka shalayn doon wax kugu dhaca markaas mid kamid ah shaqaalooga la hadlay wuxuu ku yiraahdaa ninkan daciifka timaha benefsigaali waa ninkii hore malaha aan ka shakasan inuu yahay sababtoo isku jib yihiin maase wiilku wuxuu ku yiraahdaa xitaa hadaan ahay aslan maxaa aniga qaadi kartaa laakiin waxaan ku balan qaadayaa inaan gabadhan mar dambe taabsan karin oo aniga ilaanta meeshan ka joogo markaas wuxuu ku yiraahdaa haddaba haddaan taabsan maxay iga qaadi maase ku yiraahdaa saaxiib waxaad ku laaban doontaa caalamkaaga hore maase wuxuu ku yiraahdaa caalamkaaga ka timid marka hore yani aakhirad ka timid sooma caalamkaaga hore ka timid ba kugu celin doonaa haddaad gabadhan mar dambe faraha u qaadid dadkan masaakiin hadday ka aamaan heli waayaan waad ka shalayn doontaa waxa kuga dhaca markaas wiilku wuxuu bilaabay khudbadu si wada ku yiraahdo dadka yani masaakiimada leeynaysid dulmiga ku leeynaysid ma ogtay inay ka awood badan tahay maso ku yiraahdo waan ka awood badan laakiin adiga meesha adiga horta waa kuga caajisay ku yiraahdaa hadal badan ay wadiga wareegsay oo qabso ninkii wuxuu bilaabay isku bedelo bahal wiilku soo waray laakiin wiilku wuxuu yiraahdaa hadaba aniga isku tid bedelsaa soo ma bahal aniguna waxaan isticmaalayaa baalalkan waxa soo saar bahalkeena nimankeena shabeelkii wiilkana dhawarkay kaga dhagay oo yani wiilka bahalka yar bala duulay awooda siinaya wiilku wuxuu ku yiraahdaa dad masaakiima ah ayaad ka dareento la dagaalamaysaa haddana aniga kula dagaalamaya iska tiicil haddaan ninkii baalka iska dhigay waxa dhayo inuu sii xanaaqo shabeelkii raana wuxuu ku yiraahdaa wiilkii uu dhiirigala wuxuu ku yiraahdaa ninka wan daalim ah ee dadka masaakiimo leeynay ayaad ka badbaadinaysaa hadan gees ayaa tahay ee fan isticmaal awoodahaaga kadib wuxuu ku yiraahdaa waxa soo saartay awooda yani boorka kadib maash boorba ka wada kiciyay dadkii way yaabaan xaguu aaday isweydiiyaan laakiin wiilku wuxuu bilaabay inuu ka faa'iideysto inta boorka dadku aysan arkin kadib wuxuu bilaabay inuu jiha kasta ka garaaco baalkii weynaa markaas baalku wuxuu yiraahdaa fadlan waan isdhiibay iga dagaalkan yani ama feerarka ila dhacaysid laakiin wiilku wuxuu bilaabay kama daayo wuxuu ku yiraahdaa dadka masaakiimo leenaysay ma waxaad u malaynaysaa inay adoomo ku yihiin kala xarkina gabadhaas waxay tiraahdaa ninka waa nin awood wadane waa ka helayso dagaalamay haddaba waxay bilaabay ninka bahalka inuu dhiibo oo xooga awoodiisa daciifo kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu ka faa'iideysto inuu sii garaaco oo kalba jiha kaga imdo kadib markuu jihada kasta ka garaaco ayaa bahalka wuxuu bilaabay inuu carabka laalaado yiraahdo wasdiibay iga daabas kadib wiilku inta darbadu ugu dambeysa ku jiida wuxuu bilaabay inuu faqa ka laago ninkina caadigiisa ay ku soo laabtaa wuxuu bilaabay dadka ay mahad celiyaan wiilkii way ku yiraahdaan waxa tahay nin geesiya maadaama aad adigu naga dulqaaday dulmigina lagu waday haddaba wiilkani ma doonayo inuu iska dagaalamo isagu ee wuxuu doonaya inuu helo baashir ee loo tilmaamay guri waa sixir oo inay awood badan tahay ugu dambeynna si wanaagiisa waa uu helaa wuxuuna bilaabay inuu aad u farxo oo farxadiisu gaadho xagga ugu sareysay farxad la qof uu farxo wiilkiisa oo soo faraxsanaya meesha waxay timaaday gabadhii marka hore intuu waxayna ku tiraahdaa waxa tahay in aad awood badan waana ka helaysaa u dagaalamayay laakiin waxaan ka balan qaadaya inaan aniga iga awood badnaanin waxaana doonayaa inaad igu soo wareejiso baashan sixir ka samaysan dahabka maase wiilku wuxuu ku yiraahdaa taas macquul ma aha waxa kaliya u dagaalamay ee aan meeshan u imday macquulna ma noqonayso inaan kugu soo wareejiyo taasi ka fikirkeedu ka fogeedo ku yiraahdaa kadib wiilku gabadh waxay bilaabay inay la hadasho ku tiraahdo haddaba waxaad ku sheegaysaa in aad awood badan laakiin aan waxaan rabaa inaan iga awood badnaani 3 2 1
iska ticil haddaba dagaalkan inoo bilow wiilkuna wuxuu ku yidhaahdaa hada dagaal diyaar uma yihi waxaana hubaa in adag kugu dili karo kalama xil basar saa la ajligeed waqti kale ha noo ahaato kadib wiilku wuxuu bilaabay iskaga dhaqaaqa gabadhi laakiin gabadh waxay ku tiraahdaa xageed u dhaqaaqaysa joog laakiin wiilku wuxuu ku yidhaahdaa anaa kuu soo laaban doona wuxuuna soo istaagaa meesha markabka yani samada duulayay kiin dadka waxay ku yidhahdaan ma markabka iska tuuraysaa masuul wuxuu ku yidhaahdaa haye waan salaamayaa waxaana rabaa inaan nii sheego ina meeshaan u imday inay helo baasha yar dahabka ka samaysan toqontan iswaalwaalaysaana iskama celin karayo marka la ajligeed ayaa rabaa in meesha uga baxsado kadib wiilku wax bilaabay iska tuuray meeshii kadib gabadh yar miskiinta badbaadiyana koox bilaabay ka naxdo dadka qaar waxay bilaabay ka naxaan oo xagga daba soo fiiriyaan laakiin way waayaan meel uu wiilkii maray kadib waxay bilaabay dadkii u mahad celiyeen ku yiraahdaan waxaad haynin geesiya kadib wiilkii markuu meesha iska soo tuuro wuxuu yiraahdaa waxa rabaa inaan tago caalam kale oo ka soo badbaadiyo cisaabada ama raggan cisaabada maafiyada ee dadka gumaysanaya kadib waxa la geeyaa caalam kale markuu caalamkiisa u soo caga dhigto ayaa baalkiisa la hadlo wuxuuna ku yiraahdaa haddaba cisaabadu imikii yar ku soo jiraan hadda ayaana u imanaynaa kadib rag waxaan arkaynaa ninkaasna wuxuu iskala joogaa kooxdiisii wuxuuna bilaabay inuu dadkii meesha yani u shaqaynaya shaqaalihiisa ahaa inay gumaystaan yani isaga ay gumaysanaya wuxuuna ku yidhahdaa waxaa tahay nin xun oo daalima waadna gumaysanaysaa anagu waan kuu shaqaynaynaa laakiin xaqaan kugu shaqaynaynay nima siinaysid haddana waxaa kaaga baahanay inaan siisid mushaarkeeni markaas ninka wuxuu ku yidhaahdaa horta yaa isku walwaalaysiin yaana kusoo hadal celinaysiin maanigoo aniga boqorkiina igu sareeya oo weliba ii shaqeeyo nasriga ama yacni gorgorku ii shaqeeyo oo ah ninka ugu awoodda badan meeshan ee igu soo aftaagaysiin kadib wuxuu yeedhaa gorgorkiisii wuxuu ku yidhaahdaa gorgorka uu weyn yahay wuxuuna isku bedelaa bahal hadduu xanaaqana isagaa inagu diri doona cadcadnii goyn doona ee saa naftiina yani ka adkaada oo naftiina xakameeya kelmadaha niga soo baxayna maamula markaasaa wiilka wax bilaabay meesha soo qarxiyo soo dul istaago maasaa dadka yaa waxay yidhahdaan waay meeshan kan qofkan burburiyey kadibna waxay arkaan wiilkaas uu wiil moolaa waana wiilkii waank kadibna wuxuu waanka la hadla wuxuuna ku yidhahdaa meesha waxaan ka maqlay inuu dulmi ka jiro ee yaa la dulminaya kadib raggii waxay bilaabeen soo eegaan waxay ku yidhahdaan haddaba yaa tahay adigu yaada tahay inuu isku tasheeg maase wiilku wuxuu ku yidhahdaa anigu keliya waxaan ahay qofkaasna wuxuu ka yimid caalam kale keliya waxaan doonayaa inaan niga badbaadiyo qofka daalimkeeda la dulminaya keliya waxaan doonayaa inay ii sheegtiin kadib gorgorkii baa la hadla wuxuu bilaabay inuu ku yidhaahdo aniga way qofka dulminaya kadib wuxuu ku yidhaha ma adiga dadka dulminaya kaale wuxuu bilaabay inuu duulo kolkii isla habeen ku casheeyaan kadib markii ku casheeyeen ninkii boqorka ugu sarreeya wuxuu bilaabay inuu bahadil nin dulaysan uu noqdo oo dadka ay ku yidhaahdaan ninkan adoo noocan is warwaalaysay gorgorkaagiina horiga maanta xunaynaa adigoo aan awood lahayn oo gorgorkeena noogu faanaysay hadda ayaan ku cashaynaynaa adiguna awood ma lihid kale gorgorkaa isku halinaysay gorgorkaana aniga anaga ku cashaynayna maanta kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu laago ku yidhaahdo adoo qashin baa tahay naga fogow meeshaada mar dambe kasoo dhaqaaqin wiilkuna wuxuu ku yidhahdaa keliya waxaan rabaa in naga dalbado hal shay halkaa shayna waa inaan timaha banafsijiga leeyahay inaan cid kale u sheegin timaha midabkiisa fiyooleega yahay yacni inaan cid kale u sheegin kaliya waxaana jeclay gabadhaas timeedu waa timo akhtara waxaana rabaa inay soo qabatin gabadhaasi waa gabadh aan aad uga helay raggana waxay bilaabay wiilkiina ku yidhaahdaan wax kastoo doonaysa anaga ku samaynana kadib waxaa keenaa kooxdaasna keenta iskaga jiraan wayna iska baashaalayaan biraha ee keenta ku jiraan iska goorgoosanaya waxaa keenaa gabadhaasoo gabadha tima akhtarkii wiilkuna uu sheegayay wuxuu ku yidhaha gabadhaasan doonaya inay soo qabatin soona xere gelisiin kadibna gabadhiba maxay bilaabay inay awoodda isticmaasho dadkan awooddeeda tusto kadibna wiilkuu leeyahay wuxuuna yidhahdaa alla gabadh aad awood badan waxaana filaya inay tan igu noqon doonto tan dooran lahaa kadibna wiilkii wuxuu bilaabay isagoo baalishiisa isticmaalay inuu korka ka fiirsado oo gabadh awoodahayga si u isticmaalaysa uu arko kadib markuu dhulka soo daadego ayaa wuxuu la hadla wuxuuna ku yidhahdaa anigu waxaana wiil loo yaqaano waank waxaan ahay ninka ugu sareeya kooxdan waxaana maamulaa koox dhan cisaabaha waana layga cabsoodaa hadday igu soo biirtidna kama baqaysina mar labaad yani dhibaato lagu geysto ama cidna kama cabsoon maysid kadib gabadh waxay bilowday inay soo yar dabaacdo oo wiilka xoogaa ka hesho wiilka wuxuu israa ugu dambe ka heshay laakiin waxay ka hesho shabeelkiisa yara habsiisa waxna bilowday inay shabeelkiisa salaaxdo ninkina uu leeyahay waxaan bilaabay gabadha soo dhawaado laakiin timihii wanafsiskii waa ka daata wiilkana waxaan aqaa wuxuuna ku yidhaahdaa maxaa idiin sheega hore kadib raggii wax bilaabay kadib iyagoo raggii jarayna wiil ninkii ka cabsoonaya maadaama ninka uu fashilmo yani timihiisii runta aysan ahayn timina ka baabeen gabadha ogaata xaqiiqadii ay wax bilaabeen inay raggii ay raali geliyeen wiilkiina meesha khajilaa darteed xisho darteed wax bilaabay iskaga cararo maadaama meeshuu ka ceeboobay oo hadda weji uusan u yaalin kadib subaxdii markii la gaaro wiilka wuxuu bilaabay inuu kooxdeena isku soo wada ururiyo wuxuuna bilaabay inuu dacweeyo oo xaggaa khudbad uga jeediyo wuxuuna ku yidhaahdaa gabadha waa gabadh boqorada waana gabadha mustaqbalkayga noqon doonta xaaskayga waxaana rabaa inaad noqotiin kuwa u shaqeeya khadaamada kadibna raggi waxay bilaabeen ku idhaahdaan waxaa tahay nin wanaagsan kadib wiilku wuxuu bilaabay inuu aad isku sii faanfaaniyo kadib waxay bilaabeen inay dhibsadaan xoogaa yar markay dhibsadaan wax ku dhahaan naga daafaan ka badan dhanka kale waxaa arkaynaa baashiiray dahabka
baasha daabkii akhtarka ka sameysana waa bahal awood lagu korsado kali wiilkaasina wuxuu rabaa inuu kolba caalam sugo oo baasha ka soo qaato si awoodiisu mar kolba u sii kordho haddana wuxuu rabaa inuu baasha helo cid u sheegtan ma garanayo wuxuu bilaabay inuu ka fikiro markaas wiilkiisa ka fikirayo ee xalqada saxga noogu dhamanaysa saxaabi ugu dambeeyna saxaabi waxaan soo gaarnay xalqadihii ugu dambeeyay animeegana wuxuu ahaa anime aad u xamaasad badan wuxuuna soo baxay 2016 ama sanadkan aan ku jirno waxaana ka soo degtay kaliya 10 xalqo maantana waxaan wada shantii xalqo ugu dambeysay labada xalqo ugu dambeysay waxay soo dhici doontaa Isniinta salaajiligeedana waan soo dhaxsan doonaa iminkana muuqaalka like saaran uu leeyahay kanaalkan ku soo biiro subscribe saara dadka soo qoray comment ku soo qoray inta animeega bilowday aad joojinaysaa nigadaada dadkan ku soo qoray commentaadkana waxaan ugu celinayaa jadwalkiisu oo dhagay anigu horta animeega marka anigu soo qulaaseynayo waxaan ku soo qulaaseeyaa 12 xalqo animeedka 12 xalqa soo qulaaseeyaa waxaan ku soo qulaaseeyaa kaliya 3 fiidiyoogii kaliya waxaan ku soo qulaaseeyaa 4 xalqo markaasaas way jadwalkeenu 4 ku dhafo 12 animeega dhamaasaan ku dhameystiraa maalinta jimcada ugu dambeysana animeega isku soo wada xiraa oo yani hadduu 30 daqiiqo 40 daqiiqo noqdona maalinta jimcada soo sii daayaa oo cidii suganaysa yani maalmaha jimco kaliya waxa sugato oo intay kala goog aan rabin oo hal mar inay full ku daawato maalinta jimcada u daawan kartaa cidii rabta inay xalqada ugu soo dhigan yani way ku soo biiri kartaa kanaalka laba qof buu u banaayahay markaas saxaabay kanaalka waxaan ugu leeyahay ku soo biiro online ka nagu tura tankii wax baa noogu dhaman bishii lixaad gudaheedana wayna galnaa tankii iminka inoo bilaab xalqadeena maanta ee shanaad xalqadeena waxay ku bilaabaysaa gabadhii wiilka uu jeclaa ama wiilka girlfriendiisa ahayd gabadhaas iyadoo iska socota wadada ayaa wax ka hor imanaya rag cisaaba ragaasuna waxay ku oranayaan waxaan rabnaa inaan dilno ninkii ma dhawaadaad hadlaysay kaasoo loo yaqaanay ninka dukurada ama yani ninka sayta ama u eeg magaciisa saxdana waa wine gabadhiina waxay ku tiraahdaa sabab u dilisay ninkaas wuxuu ahaa nin miskiina waa nin aad u wanaagsan oo waliba qurxoone waase wuxuu ku dhahaa anagu quruxdiisa waxaas muhiimad ma aha laakiin ninkan waa nin bah ah waana rin rabo inuu burburiyo tuuladeena ama magaaladeena bahalkan oo lagu hortagaa intuuna dhibaato geysan maasa gabadha waxay ku tiraahdaa ninkan anagu waa bahal ma aha waa nin ladiif oo wanaagsan maasa wuxuu ku dhahaa bahalku wuxuu noqon karaa ama wax loo naxariisan karaa marka uu dhinto kaliya ama yani qofka bahalka ee saameynta ma khiyaanoolaha rabo inuu wax burburiyo ama wax qaso marka kaliya loo naxariisan karo marka la dilo ama loo yani nafta laga saaro oo san noolaan karin maasa gabadho leeyahay waxaan ku tiraahdaa maxaa u sameynaysiin maasa ninkii ugu sareeyay wax bilaabno ku xanaaq ku raahdo adu su'aalaha badan naga yareeyay wax noo sheegtay ninka xaq uu joogo maasa gabadho wax bilaabnay cabsooto waxba aysan sheegin maasa mid kamid ah wuxuu ku yiraahdaa stage-an wax dhibaato kuma geysanan laakiin ninkaas noo sheegay meesha uu joogo kadib gabadho waxay ku tiraahdaa ninkaas wuxuu joogaa qasrigiisii kadib wax bilaabnay gabadho soo qabtaan oo gacmaha ka xidhaan kadib habeenkii wiilku waxaan arkay isagoo xabad yar yani sixir ka sameeysan ku faraxsan oo awoodiisa isticmaalaya tigerkiisa yaraan uu dhiyo wuxuu ku yiraahdaa adigu isticmaal bahashan oo awoodada ku kordhisay kadibna tigerkeer wax bilaabnay isagoo iftiimo jirkiisii oo meesha kursiga ka fariisto oo awoodi ka korsado bahashan yani akhtarka ahayd kadib wiilkiisa daaqadu soo istaagaa saa wuxuu arkaa dad fara badan kooxdiisa kamid ahaa la xidhay waxaana lagu leeyahay haddaad soo dhiibi weysid ama dibadda soo bixi weysid dadka ayaan dilaynaa gabadha yar miskiinta wax bilaabay inay meel caws geeyaan oo dab ku shidaan waxay yiraahdaan gabadhan dabka ayaan ku sii deyn doonaa iyadii cawskuna isla guban doonaan haddii aad soo bixi weysid nafteedana miskiinta xaggaas ku galaafsan doontaa kadibna ninka wuxuu bilaabay gabadha u bootay ku yiraahdo haddii aad ku oran weydid soo bax ninkaas aniga naftkaaga qaadi doonaa wuxuuna bilaabay inuu gabadha u handeedo gabadhuna waxay ku tiraahdaa aniga ay dil ama doonay ninka saamin ama dhibaato ay soo gaarsiisaan laakiin ninka wuxuu bilaabay inuu ku yiraahdo waxas lagama yeeray adiga ayaa yani u dhiman doona haddii aad ninka badbaadin weysid gabadha yar miskiintiin wax bilaabay iska oydo wuxuuna ninka bilaabay inuu dabkii ku gubisraahdo laakiin meesha waxa soo imaado wiilkii wuxuuna bilaabay inuu meesha soo jabiyo ragii junuudda u ahaa ninkan u shaqeynay wax bilaabay inuu laayo kadib markuu laayo ragii waxay ku yiraahdaan haddaba yaa waaskantay saaxiib anaga ay rabneen kula dagaalano adiguna waxaa tahay ninka ugu xun ee ku nool tuulaneeda maadaama aad haysatid baashii sixirka ahayd baashaan wax lagaga baahan iska soo wareejisid sababta wax u baahan boqorkii laakiin wiilku wuxuu ku yiraahdaa taas waxa ka dhow aniga oo dhinta kadib baad qaadan doontaa baashaas sheegaysi saaxiib waxaasoo kalena mar dambe ha ku fikirin ee niyadaada ka saar kadib markuu intaas ku yiraahdo ayaa wiilku isticmaalay awoodii ka soo kororsaday raggii ugula dagaalamay safiinada wuxuuna ku yiraahdaa anigu waxaan soo dilay nimanka ugu sareeya safiinada hawada duuleysay maase wax soo baxay ninka riyo ugu sareey kooxda wuxuuna ku yiraahdaa haddaba dadka sadad ka soo adkaatay aniga igama adkaanaysid haddana meesha aad ku dhimanaysaa saaxiib iska sii diyaari kadib wuxuu isticmaalaa saqarkiisa ama yani bahalkiisii gorgorka ahaa kaasoo ka samaysan dab wuxuu bilaabay wiilkii inuu daba dhigo wiilkii wuxuu bilaabay maskaxdiisa ka shaqeysiyo oo gorgorkaas uu gaganbis dhaho laakiin gorgorkan waa gorgor dab ka samaysan waxaan maamulaya ninkan wuxuuna bilaabay inuu soo eryado raggii kale waxay bilaabeen in wiilka kusoo diraan wuxuush kale ee yani raggii cisaabada ahmed ama kooxda ahayd waxay kusoo diraan wuxuusho kale wuxuushkan wuxuu wiilka isku dayay inuu gagambiyo laakiin ma awoodo
in badan ayuu gagambiyaa qaarna waxay bilaabaan inay dhaawacaan oo wiilkan wuxuu noqdaa qof tabaddar markaas ninka riyo wuxuu ku yiraahdaa ku badiya awoodaha oo ninka si xun u gala dadkaas waxa kamid ah gabadhii wiilkii markii hore isku soo barteen wiilkii markuu amoolada waxayna gabadha bilowna xasuus gasho xasuustaas oo markuu wiilka dheeri gelin jiray mar walba oo ku oran jiray hasdiib weligaas noloshaadana hore u soco waxaad tahay qof awood badan waana heli doontaa xayawaadka ka farxiya mustaqbalkana waxaad noqon doontaa qof aad u awood badan kadibna gabadhu waxay bilowday inay wiilka si xun u gasho yacni khiyaanto waxayna ku tiraahdaa iga raali ahow waxaan waa la igu qasbayaa kadibna wiilku wuxuu bilaabay inuu afka dhiig ka keeno oo is dhiibo kadib wiilku markuu ku dhaco ayaa wiilku wuxuu yidhaahdaa haddaba anigaasan ii gashay soo maaha hadda waa tookadaydii waxaana rabaa inaan idiin dhigo iniga cashir waxaanay meesha yimaada taygarkiisa ama shabeelkiisa yaraa wuxuu bilaabay wiilkii jidhkiisa galo wiilkuna wuxuu isku bedelaa bahalkii markuu isku bedelo rag way la yaab waxayna idhaahdaan alla waa ka soo laabtay boqorkeeni saxda ahaa hadda ayaanu nin dhigaya cashir raggina waxay isku dayeen xasharaadka ama bahaladii marka hore kusoo sii daayeen laakiin wiilku wuxuu bilaabay baalasha iskaga dhigo oo daqiiqada gudaheeda ku burburiya bahaladii raggina waxay bilaabeen inay naxaan oo idhaahdaan hadda ayay bilaabaysaa ciyaarteena dhabtay diyaarad hadday kacday buu yidhahdo wiilkiina wuxuuna bilaabay inuu awoodihiisa isticmaalo oo rag fara badan dhulka kula gambiyo kadib ninka riya wuxuu bilaabay inuu arko inuu ninka awood badan yahay wuxuuna yeertaa saqarkiisii ama haadkiisii yaraa haadkii wuxuu bilaabay la duulo wiilkiina wuxuu bilaabay inuu kama daba haro intuu xagga daba kaga tago ayuu wejiga ka laagaa dhulka inuu ku jiidaa wuxuuna ku idhahdaa haddaad duushid waan ogahay inaa abba duuli karo sidaad laajiligeed duulimada iyo dhul baygama baxsanaysid haddana adigaa dhimanaya marka hore anaa igu lehed adeegaa dhimanaya soo maaha haddana adigaa dhimanaya ee isdiyaari kadib wiilku wuxuu ku idhaahdaa haddaa mar ila dagaalamaysa adiguna waxaad ahayd qof khiyaanaleya gabadhi wuxuu bilaabay inigana soo weeraro gabadh dhul ku jiido ninkan wuxuu bilaabay in gabadhi qaato gabadhi wiilka saaxiibka ahayeen wuxuu ku dhaha kaaliga iga badbaadi gabadhan haddaba mar haddaad adu naftaada iga badbaadisay gabadhi kaaliga badbaadi wuxuuna bilaabay kaynta dhex cararo wuxuuna arkaa mid kamid a wiilkii kooxiisa ugu sareeyo yacni saabad ahaa wuxuuna ku idhaahdaa ii sheeg wiilkan dhigay baashi dahabka ama sixir ka samaysaneed maase ninka wuxuu ku dhahaa wallahi ma garanayo ee iska daydaa fadlan maase wuxuu ku dhahdaa waxaas aniga uma soconayaan ee runta ii sheeg waa ilaa qoortan kaa jari maase ninka wuxuu ku dhahaa may waan ku baryaa iga daan waxaas ma garanaya kadib wuxuu bilaabay inuu ku idhahdaa beenaalayo hoo qabsatan kadib wiilku wuxuu bilaabay qoorta ka gooyo laba nin ayuu wuxuu ku arkaa kayntii labadii nin waxay ku idhaahdaan yacni laba qof ma ka wada wiil iyo gabadh waxayna ku idhaahdaan waxaan ka cabsoonay saa ula dagaalamaysiin maasuu kale iniga meesha waxayna keentay saacadiina ay keentay labadii nin wuxuu bilaabay inuu qoorta ka gooyo dhan kale gabadh waxay bilaabay inay daciifto oo is tiraahdo yaa iga badbaadiyay wax shigan xun oo wiilkan wuxuu bilaabay gabadha qoorta qabto ku yiraahdo ii sheeg haddaba meesha uu ninka u gelay baasha dahabka waan u baahanahay waxa haddaad ii sheegtinna waxaa ka noqonaysaa boqorad meesha ka talisa nin gabadh awood badan ayaana noqonaysaa waana ku badbaadinaya cid ku taabsanaysa ma jirto gabadh waxay ku tiraahdaa fadlan ma arkin iska tayda waan ku barayaa ninkan waa nin miskiin iska daa meeshii laakiin waxay imday wiilkii waan wuxuuna ku idhaahdaa gabadhan faraha ka qaad maase ninka wuxuu ku idhahdaa isoo dhawaatay gabadha maskaxeeda dibadda usoo saaraya maase wiilkii wuxuu ku idhahdaa waan kuusoo dhawaanba kadib wiilku wuxuu bilaabay gabadha usoo dhawaado yacni ninka usoo dhawaado ninkan wuxuu ku idhahdaa ma ka joogtay wiilkan wuxuu bilaabay daqiiqad ugu dambaysa inuu ka istaago dib nooga baxo wuxuuna ku idhahdaa adigoo addad ii baahan tahay aniga iska tiiceli maase wiilku wuxuu ku idhahdaa may anu iskama taacelinaya waxaa doonta igu jiid gabadhana iska sii daa kadib wiilkii miskiinka ee waanga lagu magacaabayay waxaa dhahay ninkii uu cadaabo awoodo ku jijiido wiilkiina wuxuu bilaabay inuu daciifo oo yacni isdhiibo maadaama naftiisa uu rabo gabadha inuu u horo markaasaa gabadhu waxay bilowday inay iska raaraadaysaa damiir waxayna tiraahdaa aniga fadlan ii dil inta dil yahay miskiinkan iskana daa wiilkan waa wiil miskiina haddana waxaan hubaa inuu yahay nin miskiina oo yacni dulmigaan jeclayn rag fara badan cisaabo maafiya ayuu u badbaadinaya oo ka badbaadin dadka masaakiima ahaa ee maxaad ku haysataa ood ku cadaabaysaa waxayna ku tiraahdaa aniga ii dil intaa isaga dili lahayd markaasaa gabadhu waxay tiraahdaa alayse far la siiye fanaxay boodaa ayaan maqli jiray kana waan barbarayayaaba inta lilmadu iga da'ayso waxa uu intuu iga sii faa'iidaysanayo waxayna isticmaashay awooddeed wax ka mid a ninkiina waxay biloon dhulka ku jiido ninkiina wuxuu idhahdaa waad khiyaantay haddaan kaa argoosan waayo waadna ka shalayn doontaa dhaqanka ama yacni go-aankaa foosha xun laad ku dhaqaaqday gabadhiina waxay biloobay ninkay hujuumto kolbajaha ka garaacdo ninkiina wuxuu isku daya inuu gabadhii dilo laakiin meesha wiilkii waxaa imday wiilkii waag wuxuuna bilaabay inuu darbad ku jiido dhulka madaxa u geliyo wuxuuna ku idhaahdaa hadda ayaad noqotay qof daciifa kolba mid ayaad laga adkaanayaa mar anigaad iga adkaanaysay laakiin hadda adigu waa waqtigan ku dhamaystiri lahaa wuxuu bilaabay inuu kow kaga siiyo wuxuuna idhaahdaa mar dambe ka u dhawaada gabadha yar miskiinta ah uu ka shalayn doonaa xitaa hadhkeeda hadduu soo haweysto inuu mar dilo uu ka shalayn doonaa hadduu mar niyadda ku qabtaba gabadhii miskiinta waxay bilaabay inay raaligiisa ku tiraahdo iga raalaho aniga waxa waa laygu qasbay oo waxaan maamulayay ma ahayn jidhkaygana waa layla maamulayay wiilkana wuxuu ku idhaahdaa adiga waxba kuma hayso ee waa fasaxan tahay hadda dadkii gabadhan waxay bilaabay meesha ku dhex ceewowdo ee aamusto ciil darteeda iska aamusto kadibna xalqaas ay noogu dhammaanaysaa saxaabi xalqadeena maanta ee fadlan muuqaalka like saara kanaalka nagu soo biro subscribe saara maca asalaama wa shuufakum fi xalqa jaaya